Assalaamu calaykum. Waxaan ku leeyahay hambalyo. Sabab. Haddii aad casharkan maqlayso, macnaheedu waa waxaad ka gudubtay dhammaan pre-course lessonska Smooth English System. Waxaad joogtaa gebagabadii pre-course English lessons ee Smooth English System. Maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah siraha ugu weyn ee dadka Englishka bartaa ama ku guulaystaa ay maraan ama ay helaan. Laakiin qaar badan oo iska jecel inay Englishka bartaanna ay weli aysan helin. Aniga waxaan diyaar u ahay inaan midaasi kuu sheego, waana daily routine. Waa maxay daily routine? Sababtee uu muhiim u yahay daily routine qofka baranaya Englishka? Sidee loo dhisaa daily routine-ka? Sidee maalintaada loo qorsheeyaa weliba adigoo baranaya English loogana dhigaa qayb ka mid ah nolol maalmeedkaaga? Waxaan kaloon ku hayaa talooyin iyo tusaalooyin aad adigu noloshaada ku dabaqi kartid si aad adiguna Englishkan guul uga keento. Okay, marka waxaan ka bilaabaynaa what is a daily routine? Maxaa loola jeedaa daily routine-ka? Objective of the lesson, hadafka casharkan. After the end of this lesson, dhammaadka casharkan, every student, arday walba, should be able to waa inuu awoodaa understand the importance of building a daily routine. Arday walba waa inuu awoodaa muhiimadda ay u leedahay asaga inuu dhisto daily routine and how it can help improve productivity. Sidee bay u caawin kartaa wax soo saarkaaga maalinlaha ah, discipline, anshaxaaga, and overall well-being iyo dhammaan ilaalinta noloshaada. A daily routine is a set of habits. Waxaa la dhahay daily routine-ka waxaa loola jeedaa is a set of habits waa caadooyin la dejisto. Okay, habit waa caado, set waa dejisasho. Is a set of habits waa caadooyin la dejisto and tasks iyo howlo we follow every day maalinle aan u raacno. Waa hadaf aad dejisato aadna maalin walba aad raacdo ama shaqo aad qabato maalin walbana aad qabato. It helps us waxay naga caawinaysaa baa la dhahay daily routine-ka. Okay, stay organized inaan ahaano kuwa diyaarsan and manage inaan maarayno our time better. Waqtigeennana inaan si fiican u maarayno ayay nagu caawinaysaa and make progress towards our goals. Sidaas si la mid ah markaan hadaf leenahay, okay, waxay noo iftiiminaysaa horumarkeena. Creating routine brings structure to life and reduces stress. Waxaa la dhahay abuurashada routine, inaad routine samaysato ama waxyaalihii aad qaban lahayd aad qorato, waxay nolosheena ku soo kordhisaa ama noo keentaaba waxay tahay structure, wax habaysan ama habaysnaan, diyaarsanaan to life, nolosha aan u diyaarsannahay, and reduces waxayna yaraysaa stress, waxyaalaha wareerka keeno ama stresska. Tusaale, marka aad hadaf leedahay, hadafkaaga warqad uu kuugu qoran yahay, maalin walbo adoonan waxyaalo badan ka fakerin, aad ka haysid isla hadafkaagii sida uu ahay aad u samaynaysid, isla warqadaasi intaad dul tagta aad saxanaysid, waxaa la dhahay waxaa yaraanayo stresskii ku hayay ama stresskii shaqada kaa qabsan lahay. Okay, sidaasi la mid ah waxay noloshaada ka dhigaysaa mid saxan oo structure-keeda iyo habdhismeedkeeda uu toosan yahay. Marka daily routine waxaa la dhahay caadooyin waaye ama shaqo maalinle aa u qabanaysid aad adigu hadaf u dejisanaysid. Okay, kadibna aad qabanaysid maalintaasi isla waqtigii aad degsatay ayaa waxaa la dhahaa daily routine. Daily routine-ka wuxuu naga caawinayaa inaan nolosheena u maarayno si fiican, waqtigeena si fiican u isticmaalno, nolosheenana ay noqoto mid hagaagsan oo diyaarsan. Okay, waxaana la weydiiyey su'aasha koowaad oo ah why you need a daily routine? Ardayahu baranaya Englishka, adigaan kula hadlayaaye, maxaad ugu baahan tahay daily routine? Su'aal wanaagsan baana la weydiiyey. Aan ka jawaabna marka. Midda koowaad waxaa waaye helps manage time effectively. Dabcan waxayaan baranaa maalinteena. Waxaan u baahannahay marka inaan waqtigeena u maarayno sida ugu fiican. Waa sababta koowaade waxaan u baahannahay daily routine inaan dejisano. Midda labaad, increase productivity. Dabcan waxaan baranaa maadooyin kala duwan ama mararka qaarna waxaan rabnaa inaan shaqayno, mararka qaarna aan wax barano. Saacada aan nasano, saacada wax barano, saacadana aan shaqayno.
sidaasi la mid ah waxaan rabnaa hal maalin inaan waxyaalo badan qabanno subaxdii hore wax akhristo duhradii iyo casarkii aan shaqaysto habeenkii aan nasto waxaan u baahannahay daily routine haddii aanan daily routine samaysan waxyaalahaasi badan ee aan qabanayo way isdhexgalayaan si wax soo saarkayga aan kor ugu qaado marka waxaan u baahannahay daily routine midda saddexaad reduces decision fatigue waxaan rabaa inaan ku adkaado go'aamadayda okay go'aan walbo aan dejisto waxaan rabaa inaan u qabto sida uu yahay wax walboon degsado hadaf walboon leeyahay waxaan rabaa inaan ka dhabeeyo ee aan ka mira dhaliyo sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay inaan go'aamada leecleecsan ama go'aamo jiljilcan aan iska ilaaliyo sidaa daraaddeeda waxaan degsanayaa daily routine waxaan samaysanayaa daily routine si aan go'aamadayda aan ugu adkaado maalin walbana wax walboon u baahanahay aan u qabto aan u barto wax walboon doonayo sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay inaan daily routine aan degsado midda afaraad builds discipline and consistency dabcan markaan luuqad baranayno markaan shaqaynayno guud ahaan noloshaan wax walboo la qabanayo waxay u baahan yihiin joogtayn iyo anshax sidaa daraaddeed anigu arday baan ahayo English baan rabaa inaan maxaayade ka mira dhaliyo si fiican ugu hadlo si fiican u barto waxaan u baahanahay joogtayn soo maaha haa waxaan u baahanahay si aan u joogteeyo inaan dejisto daily routine caadooyin maalinle ah midda kale improves mental and physical health sax qaarkeen arday waaye iskuul ayaan dhiganaa qaarka kale jaamacad qaarka kale way shaqeeyaan soo sidaas daraaddeed mararka qaar adigoo waxyaalo badan qabanaya ayaa waxaa u baahan tahay inaad maskaxdaada iyo jidhkaaga aa ilaalisid haaw sidee waxaa u ilaalin kartaa wax walbo aad u baahan tahay ayaad qoranaysaa then waqtigoodii ayaa ku qabanaysaa waqtigii aa u baahnayd inaad jiifato ama aad iska seexato waad seexanaysaa waqtigaad u baahan tahay inaad cuntadaadii cunto waad cunaysaa then waxaa ku fiyowaanayo oo kuu badbaadayo marka caafimaadkaaga jir ahaan iyo caafimaadkaaga maskax ahaan intuba waxaan u baahannahay inaan samaysano daily routine si aan u ilaalino caafimaadkeena maskax ahaaneed iyo caafimaadkeena jir ahaaneed intuba okay su-aasha koowaad jawaabteeda waxaan filayaa inaan u faahfaahinay ugana jawaabnay si waadax ah aan u gudubno qaybta kale steps to build a daily routine tallaabooyinka lagu dhiso daily routine okay tallaabada koowaad identify your priorities marka koowaad waa inaad aqoonsataa waxyaalaha aad rabto inaad qabato sida ay u kala muhiimsan yihiin markaad ogaato waxaad u baahan tahay inaad qabatid okay decide what matters the most waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka qaadatid waxyaalahaad u baahan tahay inaad qabatid tusaale waxaad rabtaa inaad tukato waxaad rabtaa inaad wax barato maybe inaad exercise samaysid ama aad shaqaysid ama familkaada waqti la qaadatid markaad ogaato marka waxaad u baahan tahay inaad qabatid tusaale noo soo qaad hadda study waxbarasho noo soo qaad waxaan rabnaa inaan waxbarano soo maaha haa hadafkeena ma noo cad yahay wuu noo cad yahay ma aqoonsannahay haa midda kalena keen set clear goals hadaf cad samayso tusaale dheh write specific goal like waxaad qoranaysaa hadaf kuu gaar ah tusaale ahaan reading for 30 minutes waxaan rabaa inaan wax akhriyo 30 daqiiqo maalin walba or ama exercise for 4 times a week waxaan rabaa inaan exercise sameeyo asbuuci 4 maalin marka aad sidaas u qeexdo marka hadafkaada midda koowaad waad aqoonsatay midda labaad waxaa waaye hadaf gaara ayaa u dejisay waqtigii ayaa sheegtay iyo inta maalin aad rabto inaad hawshaas aad qabato midda saddexaad plan your day maalintaada balangaray sidee divide your day into parts maalintaada waxaad u kala qaybinaysaa ilaa iyo 3 qaybood tusaale morning afternoon or evening ma waxaad rabtaa marka waxyaalahan activity-ga ah ama hawshan ma waxaad rabtaa inaad qabato subaxdii ama duhuradii ama casarkii okay waad qeexaysaa waxaad leedahay waxaan haystaa waqti fiican salaada subax kadib waxaan rabaa inaan salaada subax kadib halka saac ee aan haysto 30 daqiiqo ka mid ah inaan wax akhristo ama aan English barto okay steepka afaraad ama tallaabada afaraad waa in uu ahaadaa start small and be realistic ku bilow wax yar ha ahaadaan waxa aad go'aansanaysid ama aad dejisanaysidna wax macquul ah caqligal ah la samayn karo
ee la aamini karo waa inay ahaadaan. Don't overload your day. Maalintaada ha buuxinin oo maalintaada mashquul ha ka dhigin. Start with waxaad ku bilowdaa 2 or 3 key habits, hal ama 2 ama 3 caado, and build up gradually. Si caadi ah u dhis, okay? Maalintaada ha mashquulino, waxyaalo badan ha sheegin. Tusaale haddii aad maanta hadaf samaynaysid ama routine rabto inaad samayso, haddana isla maalintii koowaad aad qorato 20 caado ama 20 shay aad rabto inaad samayso, waxaa waaye waad ku wareeraysaa. Ku bilow wax yar, 1, 2, ha ka badin. Midda kale, waxaa la dhahay caadooyinka si caadi ah ayay u dhismaan. Tusaale haddii aadan xitaa qoran, aadan go'aansan, laakiin maalin walba aad go'aansato inaad 5 daqiiqo aad wax akhrido, waxay noqonayaan wax qiimo leh oo kobcaya oo hadhow dambe natiijo ku keenaya. Okay, midda shanaad waxaan dhahnay stay consistent, joogtay. Sidee loo joogteeyaa? Follow the routine, routine-ka raac everyday maalin walba. Even if it's not perfect, xitaa haddii aadan wax walbo aad go'aansatay sideedii aadan u samaynayn. Tusaale waxaad go'aansatay inaad 5 daqiiqo akhrido, maalintii Sabtida waa akhriday, laakiin Axaddii way kugu adkaatay oo waxyaalo kale ayaa ku mashquushay. Okay waaye, maalinta Isniinta diyaar ahow oo maalintaadii hore u sii wado oo activity-gii haddii aadan maanta qaban, beritoole u diyaarsan oo inaad qabatid. Waxaa loola jeedaaba waxay tahay consistency, joogtaynta, builds habits, ayadaa waxay dhistaa caadooyinka. Joogtaynta ayaa waxay dhistaa caadooyinka. Midda lixaad waxaa waaye review and adjust. Okay, dib u fiiri oo waxyaalihii qalqaldan ee aragtid adjustment ku sameey oo wax ka bedel. Okay, at the end of the week, dhammaadka wiiga ama asbuuca, review your routine. Routine-kaagii iyo waxyaalihii aad soo qabatay dib u fiiri. Change what doesn't work. Bedel waxa aanan shaqaynayn. Tusaale, waxaad go'aansatay inaad English aad akhrido 1 saac maalin walba. Then, waxaad bilowday inaad akhrido, laakiin mar walbood akhris dhahdo 1 saac ma gaarsiin kartid. 5 daqiiqo haddii aad wax akhridaba, waad hurudaa, waad iska caajistaa, wax akhrintii ayaa kugu cuslaata. Waxaad u baahan tahay marka inaad beddeshid ee aad ka dhigtid maalin walba inaad akhrido 5 daqiiqo. Halkan waxaan ku haysanaa marka 3 sirood ee kugu caawinaysa in maalintaada ama routiinkaaga uu noqdo mid guulaysta. Midda koowaad waxaa lagu dhahay waxaad isticmaashaa app. Use a planner or app isticmaal ama planner isticmaal to track your habits si aad u cabirtid aad ula socotid wax walbood samaynaysid ama caadooyinkaada. Avoid distractions. Waxaad ka ilaalisaa marka aad howlahaas qabanaysid waxyaalaha distractionka ah ee hawshaada burburinaya. Midda kale waxaa waaye reward yourself for completing your routine. Marka aad dhammayso hadafkaadii ama routiinkaagii bil walba, is-abaalmari oo nafsadaada waxay jeceshahay u sameey. Midda kale ee ugu dambeysa waxaa waaye be patient, dulqaad yeelo. Good routines, routiinada wanaagsan, take time, waxay qaataan waqti to form ay ku habaysmaan. Ha ka rajaynin, hadaf ayaan dejistay, isla bishii ugu horeysay ayaan joogaa, hal maalin mashquul kale igama gelin, hal maalin kama caajisin, wax walbo sideeda ayaan u qabtaa ma jirto. Marka ugu horeysa way adag tahay, maalmo ayaad ka caajisaysaa, maalmo ayaa mashquul kale kugu soo furmaayo, maalmo ayaadan dhaqaaqi karin ugaas. Waan soo maray, adna waad arki doontaa, haddii kale hore ayaa u soo martayoo waqti ayay qaataanee wax walbo u dadaal, u samir, joogtay. Conclusion, gebagabadii. A good daily routine is not about being busy all the time. Routiinka wanaagsan kaama dhigayo mar walbo, saacad walbo ee maalintaada ka mid ah inaad mashquul ahaato. Kuma mashquuliyo routiinka, laakiin it's about being intentional with your time. Laakiin waa inaad waqtigaada u danqatayo waqtigaada aad marnaba ka kaftamin. Okay, good routine waxaa loola jeedaa inaad waqtigaada u fakarto, maarayso, u isticmaasho sida ugu fiican. Ma aha routine ayaan leeyahay waa inaan 24 saacadoodba aan mashquulsanaadaa. Okay, by building a following routine, inaad samaysato routine wanaagsan ama routine inaad raacdo, you shape, adigu waxaad go'aaminaysaa ee shape garaynaysaa. Shape waxaa waaye waxaad jihaynaysaa your days maalmahaaga. You shape your days, maalmahaaga adiga ayaa jihaynayo marka aad routine leedahay. Control your time, waqtigaadana adiga ayaa controlayo, and move closer
to your goal. Adiga ayaa go'aan ka qaadanayo haddii hadafkaadii aad u dhowaanayso iyo haddii hadafkaadii aad tallaabooyin gadaal uga guranayso. All in all, haddaan kuu soo koobo, rootiinka waqti ayuu qaataa. Dadaal rootiinka waxaa waa inaad hal caado ama 2 caado maalin walba si joogta ah u samaysid waaye. Okay, aan ku tuso kayga. Aniga 2023 my routine, 2025 routine. Marka rootiinkayga sida uu ahay 2023 iyo 2025 aan isla aragno. Kule haddaan kuu soo dhaweeyo waxaad aragtaa in aan hadafkayga iyo waxyaalaha aan dejistay ay iska badnaayeen. Okay, qaar badanna aan u sameeyey si fiican, qaarna aanan u sameynin si fiican. Okay, kan waa mid oo 2023 ayuu ahay. Midka kalena waxaa waaye waa kan asna wuxuu ahay 2025 asoo weliba aanan dhammaanin ayaa sawir ka soo qaaday oo inta idin soo dhigay. Marka sababta aan idinla sheer garaynaya wax kale maaha, waxaan rabaa inaad ku dhiirataan aad hadaf samaysataan. Zaa'id bay u qurux badan tahay marka aad hadaf samaysato. Sanadkii lasoo dhaafay hadaf ahay waxyaalo aad soo qabatay, maanta aad awood u leedahay inaad aragto weliba wixii aad qaladay iyo wixii aad saxday aad arkaysid. Waa waxa dadka kala reebay. Qofna wixii 5 sano ka hor uu qaladaad ah uu sameeyey ayuu maanta wax ka baranayaa oo dib u arkaya uu ka shalaynaya. Halka qofna waxa uu shalay qalday maanta uusan warba u haynin oo weli qaladkiisii ku soo socdo. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan.